waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa warkii oo fidsan guddiga imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland ayaa sheegay in diyaar garow ballaaran loogu jiro imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka guddiga imtixaanaadku waxa ay waalidiinta iyo bulshada ku wargeliyeen inay kaalintooda ka qaataan sidii imtixaankaasi u noqon lahaa mid dhowrsan oo ay ka soo baxaan arday dhisani waraxmow mar haddii guddiga imtixaanaadku waqtiga cayimeen yaa inankayna dadaalkiisa aan ogta dadaalaantiisa yaa waraxmow balkaayaabo baleega walbadhabadu soo kala dheer yiinayga war nimankaas wala waxbaan baranaya insha Allah aabo xilliga taw socota waana sagaalkii maxaad gaari markaa maxaan gaari mobil loobi soo dhow jorno ku sheegnay mobil u baahanay aabe mobil haade mobil ana ku iibinay saacada laga bilaabo haye ana ku gacanta ka saaraya ma garad isku naga caawinayo de anagu qishay waxaan garan maayo u fahmayay anu qish garan maayo qishkaada garanaye laakiin anu mobil hadaad igu tiri waan ku iibinaya ya sidaa uga soco laakiin dadaalkaagu intii hore baa ka badnaado aabo aabo weynaatu waan ku jecelay dhigis aabo guddidii imtixaanku way shaacisay imtixaanadii waa run waxaana la gelayaa imtixaankii aabo maxaa ku qorshaysan aabo waxa ii qorshaysan aniguna imtixaan ku jirin wadagtay mar walba inaan waxbarashadeeda jecelahay ku dadaalo subaxiina saan salaada subax u tukado hurdo dib ugu ma noqdo waan ka lahaa subax walba habeenkii dhan imtixaanaadkayga waxaygan ku fooraraa akhris baan ku jiraa ku dareemo oo ku arkay sanadkan waan warwarsanayaa aabo sababtoo ah waxaan la warwarsanahay imtixaanaadkii waa la adkeeyay aabo dadaal oo wixii aad qof kasta dadaalkiisa ayuunba wax u ah halkan wixii aad ku shubato ayuunba wax ku ah aaba aniguna waan ku duceeyay insha Allah waad guulaysanaysaa adiguna dadaal aaba ii duceey ilaahay ducadaada hayr garab garay insha Allah hay aaba hay insha Allah tii ku guulaysatay qeyrkeed iyo qeyr xigeed ma dhaafta weligaaba tuuga ama tiriga ayaad ima jirtay doorkana waxaan ku rajaynayaa in aad wankaba kaga soo qaato insha Allah insha Allah dadaalkaaga laban laab ilaahay ducadaada aaba hayr garab galo hadduu waagu bariyo bismillaahir rahmaanir rahiim kullu wixii waradiyada ka jira wixii dalkaaga ka jira wixii dabadda ka jira ayaa la doonaa de hay kanu baa laga helaya imka wixii dhan balkana lagu soo ururiyay hadiyadoo kursiga ku wada fadhida alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh arbaliska waran arwaa nabada soo ma fiicnid ilaahay galadi haye ha de ma sha Allah yanimo haye maxaa ku dheer ya warbaad iga dooris ya de maxaa daayis ya warka ugu fiican ku hayaa doorta ramadaantiina haye ilaahay uu naga aqbal waaga oo waxa ku cadayna sida ilaahay raxmadda doog warwaaqada jaamaha milaalma xarayada ayaa ka muuqata nacam marka ducadaasina waa qalantay de macquul maqbuul waa maxaa loo jeedaa maqbuula eraygaas ku margada marka qaar macquula anigoo lu mar waa maqbuule haye guddidii imtixaanaadka qarankuna de wararba iyaguna sii daayeen لا إله إلا وركاي نقدايو ما كان فيسا والله وركو بدن يحيى لكن ده وركو والله إصلاح صلاة من وضينا هالكون صوص صلاة فرسونا وحوش يدو كاز بعد كده جيسد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير ويا على سلامة ونكسر ده اللي كان هو رمي ورده ورد ورده وحنا ورها إني كان نجوسي مركاي بوسي لكن هو يسلو يدينا محب قور ربطي وحنا قور رمي وده هو ورقله waxaan uga warramay barwaaqada nabadda roobka in allaali intii war nuxur kale xitaa waxaan u sheegay inay guddidii imtixaanaadku xitaa fadhiisteen oo ay war soo saareen oo ilaa imtixaanku waa soo dhow yahay ها لا لا امتحان بو كشيكين ارنكاس war wax wanaagsan ka sheekay adu wax nafla ka sheekayna war maxaa doonaysaa de waxa doonay wax ka dunida doonay in laga sheekaynayo
ما مقال Soomaalidu la yiri waa ku nool ودلنا هذه maxaa ka gaxday dunida waxa naga gaxday wax balaayada la sii ogaada balaayo ka dhacay la sii ogaada ها ku sheeg balaayo ka dhacay la sii ogaada bu guuray laakiin wariyaha adigu balaadoon baa taadu ما مي wariyaha ها waxa war inaad maxad intixaamaadka wareede ها meel adigu nin weynahay haddaan hayna waxa ku yeelaa meel carraahay hadday tahayna meel qof caadi yahay haddaan hayna meel carruur lahayn haddaan leeyahayna meel guri ka soo toos haddaan ka soo toosayna meel carruurtaadu iskuulka dhigan hadday dhigataan ma sidan markaa qof mas'uul ku tahay waa inaan haytay nin weyn mas'uul waa hadda waxana wara wariyaha carruurtaadu meel iskuulka dhigan dama way dhigataa iyana dajiitooyinkooda iyo halkay galaan iyo intixaamaadkooda waxaan aad ka warhayn way iska socotaa way way taas way iska socotay salaatayga filan ya islaantayga filan wariyaha islaan la inay islaan ila carruurta ma dhalay adiga mas'uule oo ilaahay ugu dunida mas'uul kaaga dhigay wariyaha miyaanad ogeyn oo waxaan ma taqaanaa waxay ka macna tahay waxbarashada iyo intixaamaadka waxbarashada maxay ka macna tahay waxbarashadu waa noloshii oo dhan ba waxbarashadii garanay imtixaanku waa maalinta yar la maro la dhaafo Soomaa maya ma aha adeer waa mustaqbalka dalka waan gartay waa aayaha dalka haye waa aayaha dadka haye waa aqoonta dadka haye waa aqoonta dalka waa horumarinta dalka Haye. waa hogaaminta dalka waa iyo guddidan imaka ka hadashay imtixaankii weligii ma jiray waxay soo kordhisay adeer waxay soo kordhisay adeer waxa la doonayaa qofku inaanu ku baasin si qaldan haye oo soo si weligeed baqishka lagu baasi jiray ma maqashay injineer guri dhisay haye ayaa guri baa fooq la dhisay ayaa dumay oo dawladda dadku dumay maqashay waan maqlay waa injineer qish ku baasaa dhisay haye ma maqashay wadda daad qaaday ha injineer aan garanayn baa waddadaa sameeyo oo dawladda qish ku baasay waa ku qish ku baasay ma maqashay dhakhtar baa qalliinka sameeyo qofku qalaabo dhintaa qish ku baasay isaguna adeer bay carruurta laga laayaa baa doonaysaa dee maya carruurtaada ma in qish lagu laayo qof ku baasay baa doonaysaa may xaaskaaga in lagu dilo miyaa doonaysaa maya war waxa dadka kadeeday oo ay dadka hogaamiyaha wanaagsan kuwa diinta iyo kuwa maadiga iyo mid waliba adeer waa dad aqoon soo bartay oo dadaalay oo adeer wax soo bartay wax aad iyo oo imtixaan sax soo maray oo imtixaankana sax u baasay oo aqoon bartay qof waliba wuxuu wax ku yahay wuxuu bartay waa run marka adeer noocaagaa soo miidhan baa dalka iyo dadkaba qarribaya waxa imika la leeyahay waa noocaagaa taageersan dee waxaan islahayn adeer hawl yaraysi dee hayska baas hawl yaraysi baa dalka iyo dadkaba ridaysaa waa boqno goyn waa lugooyo xagga damaan anag dabada jaray miya allah ya adeer dantaada garo oo danta ubadkaaga garo oo danta reerkaaga garo oo danta dalka iyo dadkaba garo adeer qofka aqoon-yahankaa ka soo baxa oo injineerkaa ka soo baxa waa jidkii siraade qof waliba uu soo mara oo ninka markaa qishku waa kuwa ka dhacay jid siraad baa laga dhacay haddaad maqlo ifka waa ka aqoonta ka dhacay imtixaanka ka dhacay imtixaan waaba la yidhi imtixaan examination baa la dhaafay aakhirana ilaahay naga hayo kuwa dhacay ilaahayna kuma daro allah inagu daro kuwa baasay jidka siraada dhaafa allah inaga dhigo alla taageersano maanta laga bilaabo waan taageersanahay dabeetana waliba waxaan gelayaa abaabul baan gelayaa oo qaar badan oo naqaano ku yiraahdo carruurtood mobilka iska daawo fiidiyogan iska daawo waxba ha akhrisan qishkaba kan ka keenay odaygan ka keenay baan u tagayaa ina mariya waba kula tagaynaa kaas ina mari waliba eeg had iyo jeer wararka inta nafaqada lana qaado ee nabadu ka mid tahay roobku ka mid yahay waa inta umid weliga waxa qaybta dhanaan iyo balaayo Ukraine warkeeda hadooni warka Ukraine maxaa kaaga macnaa waxaan islahaa noloshu isku wada noloshu isku wada xirantay waxa taana iskala socotaa taadi ba dayacan taydan ka bilaabaya taana ka bilow taydan ka bilow barashada ka bilow ubadkaaga aday ku anfacaya maanta horta aniga ubadkayga waan soo muhiimsan waa imtixaanaadka ubadkaaga ka baxayaan ubadkayga waan u soo jeesanaya ubadka kalena iyagana waan u soo jeesanaya ina mariya hadaba kaana inooge waa shahra hanoo keenay iska ina arbunkayga masaakiinta si ardaygii dadaala ogow darajo gaadhe ardaygii dadaala ogow darajo gaadhe barashada dadweyna in la baahiyaayo la ballaariyaaye in la baahiyaayo